gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa socdaal ku soo maray deegaanada ku taysan degmada Balligubadle halkaas oo ay shicibka iyo waxgaradkuba si ballaaran ugu soo dhaweeyeen gudaha degmada Balligubadle socdaalkan samawade ayaa waqtigan ku beegmay xilli ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyuhu gobolka Hawd waxaanu kormeero kala duwan ku soo maray goobaha diiwaangelintu ay ka socoto ugu horeyn waxa goob fagaara ah kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga wadani xildhibaanada xisbiga degmada Balligubadle sidoo kale fagaarahaasi waxa kala hadlay maayar ku-xigeenka degmada Balligubadle Mawlid Jaamac Yuusuf oo maanta ku biiray xisbiga wadani horena uu ahaa xisbi xaakimka kulmiye in badan laga sugay lagana tabay maantana halkan waxa kugu diyaara xildhibaano badan oo maayar ku-xigeenka uu daadahaynayo si gaarana ah wada hadli doontaan insha Allah ma sha Allah in kasto de xadki xiran yahay Ilaahay bay naga furay insha Allah Ilaahay baa inoo furi doono koleyna uu siyaasadaysan yahay Ilaahay oo furay mooyo waxaan u maleynayaa furmi maayo amina la waayay oo Balligubadle ahay waxa la yiri war haddaan nidhaano awal waan istilaynaa haddaan gaashaamo geyno habaryoonis way istilaysaa haddaan habar jeclo balidhiig iyo maxbeen isku dilaynaa xageen geynaa arab ha loo geeyaa la yidhi arab ha loo geeyo iyadaa lagu badbaadayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ayaa la hadlay dadweynaha ku dhaqan xarunta gobolka Hawd degmada Balligubadle una ballan qaaday in uu wixii karaankiisa ka qaban doono waxaana kamid ah hadaladiisii wixii kale aanu ku darayno haday tahay xagga caafimaadka iyo xagga wadadaba ballan qaad rasmi ah idin keenay doona hadii ilaahay ka dhigo ballan qaadka iyagu ma raago waa in rumoba hadii ilaahay ka dhigo aad baa mahadsantihiin waxaanu jecelahay mar labaad inaanu anigu ka hadlayo magaca wafdiga aanu shacbiga u mahadnaqno hadceedo kulula awgeed waxaanu jecelnahay Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Hon Cable TV degmada Balligubadle